horta waxaanu sheegayaa maxamed axmed bedel sharmaarke dabkaad horisay eed ku kicisay dhalinta dumarka arrintaasi arrin looga baahan yahay mudanka maaha waana isku qaldanay qofka adu wax ka sheeganaysa in isaga wuxuu sheegto ayaa ka habboon laakiin bulshada dumarka inaad wargaarsiisa aan jirin dee aday foolxumo kugu tahay waxaana leeyahay arrintaasi aad iyo aad baan uga xunnahay dumarkana waxaan leeyahay buuggan waxaa la qoray 2010 waqtigeediina maba joogno wasiirkeedina waa kan maanta ila fadhiya waxaan leeyahay arrintaasi arrin ujeedadiisu caynka ay tahay maaha anuu buugga dabiya dacar waan akhriyey waxaad ku sheegaysana kuma arag iyo wax ku qoran toona marka waxaan leeyahay dumarka ciida kale idinku horta raalli iska ahaada war uma idin soo gaadhay warkaasna nin wax ka tabanaya wasiirka ayaa meesha hadalka soo geliyey maanay ahayn wuxuu wasiirka ka tabanaya inuu la yimaado ayay ahayd laakiin hadduu isiri hablaaceeda kale ee ku xaal doono waxayna tahay waa arrin qalada marka ninka maxamed axmed bedel arrintaas wuu ku qaldan yahay wixii isaga kala gudboonaana muu hagaajin waxa weeye fidno kale inuu sii kiciyo ay abuur karta arrintan taasina waa tan ka feejignaanahay inay fidnadaasi dhacdo wasiirkuna waa kan agtayda fadhiya isla kelmadiisa oo dhan doona بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxa aan ka bariidinayaa dhammaan ummadda reer Somaliland meel kasta ay joogto sida baryahan ba la socoteen waxa la wareejinayay buug aan qoray beri hore daabacadiisana aan Hargeysa ku soo saaray 2012 jaamacadda Hargeysa aan ku soo bandhigay ujeedadii gabayga la wareejinayo lagu kiciyay dumarka anigu dumarka waan u hiilinayay dhaqan xumada oo kula kaceen raggii mansooyinka tiriyay in diintu ka soo horjeeday dhaqankeenu ka soo horjeeday lama xukumay oo lagu xukumay in gabayaanimada lagaga saaro ayay ujeedadoodu ahayd iyo ina Cabdalla Xasan oo isaguna dumar kala caayay oo waliba si qaab daran u caayay inaan isaga la xukumin laguna sheegay sheekh iyo haliyay horta ujeedadu caynkaas ay ahayd buuguna wuxuu ahaa sida ujeedadeedu ee sheeko imika ameehayn ma dhici karto igana suurtoodo in hooyadii iyo habroodagyadii iyo ilmaabtiyadii iyo ehelkaygii inaan aflagaadeeyo anigu waan u hiilin jiray xagga suugaanta hadii laga qoraalada waray waxa kamida inaan haweenka Soomaaliyeed yani suugaantooda cagta hoosteeda la gelin karin anigu oo taageersan in ay ka badbadan yihiin oo ka suugaan badan yihiin raga ninka hawshaasi runtii in de sheegay anigu jaamacadda sida uu sheegay been buu sheegay meerin anigu jaamacadda waxa weeye sharcigeedu ardayga inuu u dhigo nin isaga ka aqoon badani hase yeeshee heerkii jaamacadda laga doonayay muu gaarin jaamacadda ayaa eriday suldaan maxamed wuu noo yimi beriga inankaasi uu cabanayay arrintii markuu loo sheegana suldaanku sidii buu ku aqbalay uu yiri hadana heerkii la doonayay gaarsiisnay jaamacadda lagaagama deenad ka shaqaysan maaha tan kale ee imika laga hadlay wasaaradda maba ogeyn anagu in wasaaradda u shaqeeyo waan waxbarashadu man ku oga mana ogeyn in isagu meesha ka yahay de agaasimo waaxid iman de imikana hadduu yimaadana wasaaradii maxaa shaqaalaha ayuunba arrintiisa qiimeynaysa midaan aanu qiimeynaya maaha haddii hay'adii la soo wareejiyey ama shaqaalihii la soo wareejiyey wasaaradda waxaa qiimeyn ku samaynaysa hay'adda shaqaalaha taana mid aniga aan mas'uul ka ahay maaha aqoontu leeyahay baana gradekiisa lagu qiimeynaya
hadal iyo dhammaantii waxaan ka raali gelinayaa haweenkii sida xun wax loogu sheegay in ay xanuunkaa gaadhay ee ay muddada badan ama habeenada badan la lidi waayeen aan ka raali gelinayo aniguna aanu ahayn ninkii sababay mar walbana aan idin jecelahay mar walbana aan idin garab taaganahay habaryarahay muxuu ahaye haddii bidka leeyahay ilmaabtiyaday dee ehelkaygoo dhan baa tihiin igamana suurtoodo marka waxaan leeyahay arrin iga suurtooda maaha arrin naga suurtooda maaha sidaas baa raalli ku ahaanaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu